الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحباب. meel kasta caalamka ka joogtaan waan idin wada salaamaya dhammaantiinaba. Soomaalidu markay is salaamayaan waxay isku salaami jireen salaan ka soo gooday kashka iyo laabta ka macaan badan malabka shinnida ka caraf badan barfuumka wamaanshoga iyo bakhurka. Salaantaasi hawada waa idin soo mariyay gadoomo dhammaantiina meel kasta caalamka ka joogtaan sidaa baa la oran jiray. And so today what do I have for you today? That's a good question to ask. Ayaan dhibaato waxaan ka hadalnay quraanka xifdintiisa in qofka quraanka uu xifdin karo hal bil ay ku qaadan karto inuu xifdiyo, qofka inay ku qaadan karto quraanka 2 bil inuu xifdiyo, qofka inay ku qaadan karto quraanka inuu xifdiyo 3 bilood, qofka ugu maskaxda adag ay ku qaadan karto 6 bilood mise 5 bilood mise 7 bilood. حتى هذا سي صعنو waxaan ka dhigi karnaa 1 sano. لأن maxaa yeelay u fiirso hadda qofka markuu rabo inuu wax sameeyo hadduu wuxuu sameynayo ay dhabka tahay waa tii af carabiga maahmaahdiisa ahaan jirtay man jada wajada yabluqu ljadda man ijtahada qofka dadaala ayaa wuxuu rabo gaaraya. soo marka waxaan leeyahay sideedaba bini aadamka markay ka go'an tahay inuu wax sameeyo wuu samayn karaa. oo Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey maskax iyo indho wax ku arko iyo maaragtay lagu wax ku raadiyo. marka waxaan leeyahay walaalayaal aan noqono kuwa baranaya quraanka oo xifdinaya. uqsimu billahi ilaahay baan ku dhaartay qofka oo bini aadamka ah oo insaanka ah markuu quraanka xifdiyo oo quraanka laabtaada ay gasho ee laabtaada ay ka buuxsanto wax ka nuur badan oo ka deganaan badan oo ka naxariis badan oo ka firfircoon malahan qofka. maxaa yeelay waxaad ximbaarsan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisii, waxaad ximbaarsan tahay waa Allah subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa weeyaan, wax kala ximbaarsan tahay malahan. marka waxaan leeyahay aan noqono kuwa maaragtay quraanka ku dadaalaya baranaya. maanta waad aragtay horna waan usoo sheegay qofka markuu quraanka xifdinayo dugsiga lagu geynayo. hadda u fiirsan Soomaaliya dugsiga lagu geynayo waxa weeyaan waa baakado iyo jiingado iyo geedo weeyaan la sameeyay. laakiin iskuulka maadada laga baranayo lagu geynayo waxa laga sameynayaa sar ilaa dabaqyo ba laga dhigayaa, qurux dhar baa lagu soo tarayaa, kaba lagu siinayaa, caaga buraashka biyaha lagu shubtaa lagu siinayaa, halka lagu soo yahay boorsa lagu soo gadayaa, kaba lagu soo gadayaa. waxa laga dhigayaa ma sha Allah يعني qofkaani inuu u socdo inuu baranayo wax dadka dhanba guriga jooga dhanba inuu maaragtay jana geenayo. wuxuu baranayana waa cilmiga afka Soomaaliga mis Englishka mis Carabiga weeyaan maadooyinkeeda. laguma diidana diintana ma diidayso qofka inuu wax barto cilmiga barto. laakiin waxaan leeyahay waayo quraanka sida loogu sharfi waayay quraanka kariimka ah. ilaan qofka maanta aabaha mis hooyada oo caruurteeda quraanka barta oo quraanka xifdiya qiyaamaha marka la yimaado taaj baa loo xirayaa hooyada aabahaagi. bal ka waran wanaaga lagu yeelayo sida lagu maamusayo bal fiiri. laakiin marka aad adigu dhakhtar noqoto mise PhD haysato mise professor aad tahay aakhiro miyaa hooyo aaba loo surayaa maxaa la yiraahdaa taaj loo masurayo wala ka tahay. laakiin cilmiga aad baratay laguma diidana inaad barato oo dadkaaga uga faa'iideyso oo wax aad wanaagsan weeyaan. soo marka waxaan leeyahay walaalayaal meel kasta caalamka ka joogtaan quraankan aan noqono kuwii maaragtay qurxinaya hadii jeerba, kuwii quraanka wanaajinaya hadii jeerba aan noqono insha Allah. ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmiga hayna fahansiiyo walaalayaal.
kuwa cilmiga barta allah inaga wada dhiga dhammaantiinaba aamiin dhaha dee aamiintu maaniga keliya aamiin dhaha bas waxaa is leedihiin ducada waxaa laga aqbalayaa dadka waaweyn oo maaragtay cirada ku taala insha allah. garkaygan wuu soo bixi doonaa. ayaan dhaweetay coronaviruska markuu aad maaragtay u socday ayaa hosbitaalkii waxaan ugu qasbeen inaan garka aan wada xiirno insha allah. markaabaad dhihi doontaan allah ninkani waa iska maaragtay waa yeelo ducadiis markaad kicisa oran doontaan. soomaalida mugta qofku markuu gar leeyahay garweyn leeyahay waa shiikh buu u yahay culamo buu u yahay. laakiin qofka markuusan gar lahayn soomaalidu agtooda shiikh kamaa qofka haddaa u fiirsateen ma aqaan insha allah. suuratu maryama ayaa waxaan rabaa aayada gaagaaba inaan ka akhriyo kadibna video halkaa inaan ku joojiyo mid laba saddexaadoo soo socda aan kaga hadlo kayfiyaadka qur-aanka loo xifdin karo sida ugu fudud waa sidee, caruurta qur-aanka sida loo xifdin karo sida ugu fudud waa sidee. kadib kaa waa maado aan ka hadli doono. musalsalkan waxaa noo bilaaban doona xagga cilmiga maadiga ah. cunugaaga hadduu maanta dugsiga uu ka baxo maxaad jeceshahay inuu barto? maanta waxaan jecelnahay medicineka inaan barano. dadka dhan waxay jecel dhakhtar ay noqdaan, laakiin waxyaalo waxaa jira adigoon dhakhtar noqonin, adigoo engineer noqonin, aad ka lacag badinayso jaamacaddan 3 sano kaliya ay kugu qaadanayso. taa ma ogsoontihiin? markaad jaamacadda sidaa uga soo baxdo mishaarkaaga wuxuu kaaga bilaabanaya haddaa UK joogto 120,000 oo pound sanadkii. haddaa meelaha kale aad joogto mishaarkaaga wuxuu kaaga bilaabanayaa marka la turjumo 150,000 oo dollar sanadkii kasoo qaad, mise 140,000 oo dollar sanadkii. meelaha kale haddaad joogto oo yani dhulkaa kaloo Yurubta ka hadlaya. marka waxaan leeyahay taana waa isku faa'iideyn doonaa insha allah. waan kala faa'iideysan doonaa hadduu ilaahay raali ka noqdo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ولم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. إخواني وأخواتي عالم كمال كستا كجوكتان waxaan idin leeyahay aan noqono kuwa quraanka xifdinaya, kuwa quraanka baranaya, kuwa quraanka xifdinaya, kuwa quraanka baranaya, kuwa isjeclaanaya, kuwa walaalahooda jeclaanaya, kuwa isu faa'iideynaya, kuwa kala faa'iideysanaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigeena ha dhaafo walaalayaal. umuurta allah inoo sakhiro walaalayaal. waxaan jecelnaa wanaag ilaahay subxaanahu wa tacaala hana wada sii walaalayaal. ilaahay dembigeena ha dhaafo walaalayaal. allah ina dooro walaalayaal. qabriga allah inoo waasiiciyo, allah inoo nuuriyo. xisaabta allah inoo khafiifiyo.
jannaan jecelnahay camalkeeda maba hayne raxmad ilaahi subxaanahu wa tacaala aan igu geeyo walaalayaal. salaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.